madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa soo xiray shirweynaha shanaad ee hogaaminta iyo hal-abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed. Gudoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo maanta xarunta aqalka sare ku soo dhaweeyay gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti. In ka badan 15 dharqabe oo lagu dilay howlgal ciidanka qaranka ka fuliyeen deegaanka Qaycad ee gobolka Mudug. ciidanka Mareykanka oo bilaabay dowlatus ee iskugu diyaaranayaan dagaal weyn oo mustaqbalka ay la gali karaan Shiinaha. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadeena warka ugu weyn ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed. haatan ku soo dhawaada asigoo faahfaahsan waxaan warka idin akhrin doono anigoo Yuusuf Kashmir. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa soo xiray shirweynaha shanaad ee hogaaminta iyo hal-abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed. waxaan warkan noo faahfaahinaya wariyaha Shucayb Maxamed Cali.